Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay meel walba ay adduunka ka joogaan waa wada salaamantihiin. Salaanka bacdi waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin oo na wada xanuunjisay dhammaanteena haddaan Soomaalina. Arrinkaasi wax kale ma aha walaalayaal. Haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaa noo tashtay dad calooshood u shaqaystayaal ah. Waxaa noo tashtay dad raba waddankan inuusan nabad noqonin. Waxaa noo tashtay dad damiirka ka dhintay. Waxaa noo tashtay deris aan noo beernaxaynin oo dantiisa keliya fiirsanaya. Waxaa noo tashtay dad lagu shaqaysanayo, la soo adeegsanayo sida eeyihii oo kale. Waagii ama dadkii reer guuraagi ahaa waxay caado u ahaan jirtay markay doonanayaan ugaarta inay doontaan ay soo ugaarsanayaan, waxay tarbiyadaysan jireen ama rabaayadaysan jireen eeyaha si ay ugaarta ay ugu soo qabtaan. Dad noocaas oo kale ah ayaa waddanka loo samaystay oo shacabkii Soomaaliyeed iyo waddankii Soomaaliyeedba loogu soo tababaray sidii loogu ugaarsan lahaa dadkaas. Waa nasiib xumo aad iyo aad noo taabatay arrinka kan oo na ragaadisay haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed muddo 30 sano ah. Waxaan rabaa caawa bilqalbi inaan u hadlo oo Ilaahay ila og yahay. Ma jecli shaashadaha inaan ka muuqdo mar walba, laakiin markaan soo galo waxaan rabaa si serious ah, daacadnimo leh, aan dhanna u eehanaynin, Soomaali oo dhan oo ii wada mid ah aan rabaa inaan maanta erey ama 2 erey inaan ka iraahdo halkan. Mana rabo runtii inaan qof shakhsi ah aan duro ama aan wax ka sheego ama qabiil inaan waxba u gafinaan rajayna hadduu Ilaah yiraahdo. Waxaan rabaa inaan si hordhac ah u sheego haddii ay iga dhacaan gef aan u gefay qof walaalkayga ama gabar walaashayda ah ama qabiilada Soomaalida ka mid ah haddii aan u gefo si hordhac ahaan ah. Mana rabo in aan ku xadgudbo ama aan si ula kacaan u iraahdana ma jecli. Waxaan rajaynayaa in layga raali noqdo. Bulshada Soomaaliyeedna meel walba ay joogaan, bini aadamka ma gafay waa Allah subxaanahu wa tacaala. Annaga waa wada gafnaa, waa wada gaabinaa, waa wada qaladnaa, laakiin haddana saas ay tahay waxbaan rabnaa inaan isfahansiino. Run ahaantii walaalayaal, shacab weynaha annaga isla hadlayno. Run ahaantii waddankan dadka kan haddeertaan ka shaqaysanaya ama lagu shaqaysanayo waa ay noo tashteen. Maxay noogu tashteen? Siday calooshooda u buuxsan lahaayeen, siday iyaga loogu shaqaysan lahaa. Waxay u arkaan siyaasad, qofkani siyaasi inuu yahay, qofkan inuu aqoon-yahan yahay, qofkan inuu caan yahay ayaa wuxuu u arkayba xal ama farxad ama wax fiican
intaas oo dhan war wadankii iyo dadkii wuxuu ka doorbiday inuu caan noqdo, in lagu shaqaysto, in ma aragtay lagu dangaaro. runtii waa nasiib xumo oo bulshada Soomaaliyeed u soo hooyatay wey. culamo badanaa qabnaa saan hore u sheegay, siyaasiyiinaan leenahay. I don't know siyaasiyiinteena anaga I don't know siyaasiyiinaan leenahay bas maash siyaasiyiin baan leenahay, laakiin siyaasiyiinteena aawe siyaasiyiinteena ma dadka Muqdisho maanta ku shiraya miyaa siyaasiyiin noo noqon kara? dadkaas miyaa wadan hogaamin kara? dad tarbiyadaysan rabaayadaysan miyaa wadan noo xukumi kara? miyaa annagana xukumi karaan? lilasaf maya. waa ka xumahay arinka kan hadda uu ka socdo magaalada Muqdisho, shirka loogu magac daray shirka wada tashiga. nidaamka ay wax u wadaan cunuga yar 2 jirka ama 3 jirka af Soomaaliga hadda baranaya wuxuu dareensan yahay inay qaldan yihiin dadkaas. saas ma leela fahansan yahay. talow dad waxaas ku jira shirkaasi ka mid ah madaxweyne soo noqday, ra'iisul wasaare soo noqday, gudoomiye baarlamaan soo noqday. walaalayaal annaga haddaan nahay shacab weynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkan nagu shaqaysanayo oo lagu adeeganayo, sida aan iskaga celin lahayn, sida aan u fahmi lahayn dhagartooda. wadanka uma ogolnin dhibaato kale oo hor leh. dhibaato waa lasoo arkay. shacab weynaha aad iyo aad iyo aad ayuu ugu warqabaa, ama aad iyo aad ayuu ugu soo daalay aan dhaho dhibaatadii na ragaadisay oo dib noo dhigtay oo 30 sano na baabi'isay. dhibaatadaas weli dhegtayna way ka guuxaysaa. bal dad baa ku soo koray dhibaatadaasi, dad baa ku soo ceeshay dhibaatadaasi, dad baa ku lacageystay ku taajiray dhibaatadaasi. dadna runtii aad iyo aad waa kuweennii badda ku dhammaaday, ku dhinteen, waa kuweennii qaxootiga hadda ku jira, waa kuweennii wadanka gaajada hadda ku haysa. dadka hadda oo wax noqday waa dad tiro yar. dadka na heesta oo hadda nagu ciyaaraya waa dad tiro yar. afkaasay ka booteynayaan. laakiin waxaan ogahay siyaasi ka mid ah qabiiladiisa oo taageersan ma jiro. hadduu taageersan yahayna waa kuwa xigtadiisa dhow ah, ina adeertiisa dhow ah, oo awooda inuu wax yar u qeybiya, garbahayga istaaga yiraahda, aan dhibaato ama buuq ama fawdo aan sameyna yiraahda. qof kale ma haysto. siyaasigaasi wallaahi iyo billaahi lama dhihi karo qabiilkiisa oo dhan baa taageersan. wallaahi in la dhihi karin. waxa taageersan waa dad nisbo aad iyo aad u yar, ilmo adeertiisa xigtadiisa kan ugu soo dhoweeyaan. waa la dareemi karaa aad iyo aad. waxaan hadalkan iga keenaya waa xanuun aan u xanuunsanaya walaalkayga ama walaashayda ama hooyaday ama aabahayga oo Soomaaliya ku dhibaataysan. ficlan Soomaaliya guud ahaanaan ka hadlaya, ani gaar ahaan ma aha waxayga, waa guud ahaan. hooyada Soomaaliyeed waa hooyaday, aabaha Soomaaliyeed waa aabahay, walaalka Soomaaliyeed waa walaalkay, walaasha Soomaaliyeed waa walaashay. guud ahaan Soomaalida, shacabka Soomaaliyeed
qabiiladooda noocay walba u ahaado yani ay wada ahaadaanba waxa waaye aad iyo aad baan ugu xanuunsanayaa runtii waxa oo hadda haysta dhibaato ah waxaan aaminsanahay dowlad baan haysanaa iminka taageeranimo igama aha wallaahi thumma wallaahi wallaahi thumma wallaahi wallaahi thumma wallaahi waa ilaahay magaciisa oo lagu dhaartay ciyaar ma ah walaalayaal aqli aan yeelano damiirkeena inuu shaqeeyo aan isku dayno qabiil wax inoo tari maa isxigsasho wax ma noo tarayso soomaali hal qabiil weeye hal qabiil wallaahi waa hal qabiil soomaali aan laba ahayn hal qabiilaan wadana kollaytaba aniga saan aaminsanahay mabda'iyan hal qabiil baan nahay soomaali haddaan nahay yaana la wada qaldan keena qaldan aan qabanno keena saxanna aan taageerno adduunka dowlad la-aan dowlad xun baa dhaanta ayaa lagu mahmaahaa soomaali haddaan nahay af soomaaligaas dabcan waa iga wada badisaan idan maadaama dowlad xun aan wada haysanno waa inaan ku faannaa walaalayaal dowladdaasi xun saan ku toosin lahayn inaan ku dadaalnaa la rabaa walaalayaal waxaan aaminsanahay madaxweynaheenna hadda waddanka haya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo horta yaan la ii malaynin nin taageero ah taageero ma ihi aniga ayi madaxweyne waddankaas soo qabtay taageero ayaan u ahaa run ahaantii laakiin maanan ka hadli jirin maxaa igu qasbay maanta inaan ka hadlo dhibaatadii yaa nagu raagtay waxa meesha ka socda yacni ebel ma lahaan jirin warbaahinta sidaan oo kale xorriyaddan oo kale ma la haysanin walaalayaal laakiin hadda maanta qof walbo shaksi soomaaliyeed waxaan u baahan nahnay ra'yigiisa fikirkiisa waa inuu halkan kan kasoo bandhigaa walaalayaal aamuusni waana dishay gadaalay noo dhigtay horumar la-aanay noo qasabtay marka maadaama Facebook uu yaallo waxaan jeclaystay shaksi walbo annaga naga mid ah oo soomaali sheegta waa inuu halka kan Facebook ka soo hadlaa walaalayaal mid walba ra'yigii uu Soomaaliya ku darsan lahaa oo ku dhisi lahaa waddankiisa waa loo baahan yahay walaalayaal nafsadan meeshii loo soo joogo ilaaha ku cilmo leh walaalayaal kollaytaba hadal badan waxaa la yiraahdaa haan ma buuxsho ujeedkayga waa ila fahanteen aan rajaynayaa mana noqon doono mid oo ka aamusa hadda wixii ka dambeeya arrimaha Soomaaliya waxaan noqonayaa mid soo jeeda mar walba waaqiciga oo waqti xaadirkan lagu jiro waa inaan ka hadlaa mar walba ani waxaan aad iyo aad uga soo horjeedaa walaalayaal shirkaasi oo Muqdisho ka socda 100% waa ka soo horjeedaa ama halay dhaho mucaarada tahay ama muxaafida tahay ama dawladda taageerta halay dhaho I don't care maxaa yeelay shirkaasi waxa meesha hadda ka socda qof walbo kursi doon waa qof xal Soomaaliya oo rabo male hadda idin sheegaya aniga qof kasto calooshiis u shaqeystayaal waa ku soo celinaya walaalayaal farmaajo madaxweynaha Soomaaliya maadaama Ilaahay uu ka dhigay ma aflagaadeyn kara aniga xumaantiisa iyo samaantiisa inaan ka hadla mooyaane madaxweyne hore u socon leeyahay maxaa yeelay aflagaadadiisa maanta dambiyay igu tahay aniga waay ulul amri waa ninka waddankaasi maanta mas'uuliyadda Ilaahay oo u dhiibay waay hadduu wax qaldo ha loo saxo hadduu wax saxana ha lagu taageero war mana soo maray hal madaxweyne oo markuu xilka uu haayay inta madaxweynena soo martay ma jiraa madaxweyne oo shakhsi shisheeye ah oo arrimaheena ku lug lahaa oo buriyay eriyay ma jiraa madaxweyne farmaajo ka jiro markii saas xilka loogu dhiibay khayr Allah siiyo wuxuu bixiyay ninkii odayga ahaa Etoobiyaanka ahaa garan maayo magaciisa ma xasuusto hadda dhawaanahan wuxuu buriyay kuwii arrimaha Soomaaliya u xil saarnaa
kii ugu madaxda ahaa garan maayo magaciisa. walaalayaal ilaahay ha laga cabsado. ninka noocaas oo kale ee dadkaasi oo waddanka ka bixinayo muxuu u bixiyey? wuxuu arkay 30 sano in nala heestay, in tadaqulaad uu jiray. hadduu ilaahay dareensiiyey alxamdulilah ha lagu taageero walaalayaal. walaalayaal waddankeena naga badan khayraadkiisa walaalayaal. ha la shaqeysto, yeembada ha la qaato. siyaasi yeembada u dhiib, maadaama qori u dhiibi lahayd dadkaaga, ehelkaaga, xigtadaada dhow oo adig ku taageersan beenta u sheegaysid oo kista yaro oo qataatiicda xaaraanta kugu soo gashay aad siinaysid oo dagaalan dhehaysid, bedelka waxaa ugu bedeshaa soo hanuuno ilaahay ka cabso oo toobadkeen, toobada kuu furan. ha qaldin masaakiimiinta yaro oo adig ku taageersan, ha qaldin brother. maxaa yeelay cunug yaraa ku fahmay brother. sabyaanka hadda dhashayaa ku fahmay siyaasadda oo haddeertaan afka Soomaaliga soo baranaya. waxa adiga media dadka kala hor imaanaysid waa lagula fahmay brother. isku xishooda iminka, isku xishooda. waxba tala ma haysaan brother. walaalayaal waxaan idinka baryayaa videogan aan maanta meeshan soo gelin doono inaad wada share garaysaan min fadlakum wa ihsaanakum. waligay qofka ma codsanin inay share gareeyaan. waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed say u wada dhantahay inay dhageysataan rabaa, inay wada gaartaan rabaa hadalkayga. maanta qofkii runta sheega lama jecla, laakiin ilaahay waa jecel yahay. ilaahay waa jecel yahay. waxaan ku soo gabagabeynayaa duco yar oo inaad aamiin na wada dhahdaan oo waddankeena inuu ilaahay khayr noogu dhigo. aamiinta noo dhaha walaalayaal. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلهي ربي رحمانه ودن كينا نو إصلاحه. إلهي ربي رحمانه ودن كينا نو نبذي. إلهي ربي رحمانه دولة دينا نو أود سي أو أود نوغيال. إلهي يقفك حق وضع أو أنك نحكم أو حق وضع. إلهي حق وافج. إلهي أزيادة. إلهي ربي رحمانه ننك أولو الأمر جنوعه. إلهي ربي رحمانه حق وافج. إلهي أمديس ننك أشفاع لها إلهي كيال. إلهي ربي رحمانه mid noo adeega oo bulshada daacad u ah Ilaahu nasiib. Ilaahu rabbi raxmaano doorasho hadda la galayaa. doorashadan rabbi raxmaano qofkii xaq wata oo wadankaasi raba inuu horumar iyo barwaaqo iyo bashbash gaarsiiya raba. Ilaahu ninkaas noogu dhiib xilka yaa rabbal caalamiin. Ilaahu rabbi raxmaano dadka oo jaqaafada iyo lugoosmada iyo xaasidnimada iyo boobka nagu wada Ilaahu naga qabo yaa rabbal caalamiin. Ilaahu dadka la soo adeegsaday oo lacagta la soo siiyay Ilaahu naga qabo rabbi raxmaano. Ilaahayo kuwa Soomaaliya ku lug leh inay horumar gaarin raba Ilaahu kuwaas naga qabo yaa rabbal caalamiin. اللهم آمين اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.